xarafkii ugu horeeyay quraanka ayaa ahaa mid kasraysan halka xarafka ugu horeeya marka tartiibta leegana uu yahay mid kasraysan isla xarafka ugu dambeeyay quraanku waa mid kasraysan haddaba inaga oo eegayna ama oo fiirsanayna kasrayaasha quraanka waxaynu eegi doonaa suurad kamid ah suuradaha quraanka ugu gaagaaban suuratul ikhlaas ayaa kamid ah suuradaha quraanka ugu gaagaaban haddana ugu mucjisooyinka badan leh suuratul ikhlaas ayaa ka kooban 4 aayadood aayada koobaad waxa ay ku dhamaataa ereyga ahad ee macnaheedu yahay kali halka isla aayada afraad ee ugu dambeysana uu ku dhamaado ereyga ahad haddaba inaga oo sii daba socona kasrihii ama calaamada kasraha imisa kasre ayaa ku jira suuratul ikhlaas waxa ku jira hal kasre su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye halkee kasruhu uu yaalaa haddaba kasruhu waxa uu yaalaa ereyga yelid ee aayada saddexaad ku jira suuratul ikhlaas waxay ka kooban tahay 740 xaraf iyo 15 kelmadood ereyga yelid ee kasruhu ku jiro ayaa ah ereyga sideedaad 7 kelmadoodna waa ay ka horeeyaan 7 kelmadoodna waa ay ka dambeeyaan taa macnaheedu waxay noqonaysaa waa ereyga bartanka ugu jira xarafka kasraysan ee laamka ayaa isaguna noqonaya xarafka ugu dhaxeeya ama bartanka ku jira suurada waayo waxa ka horeeya 23 xaraf halka ay 23 xarafna ka dambeeyaan isla xarafka laamka ee kasraysan ayaa ah xarafka 23aad ee xuruufta higaada carabida ta kale ma ogtahay in 23 sano uu quraanku soo degayay taasoo u dhigmata 23 xaraf ee ka horeeya xarafka kasraysan ma isleedahay ama ma is oran karnaa qof bilaaadana ayaa sameyn kara tartiibta noocaas ah ilaahay oo keliyata ayaa awood u leh fadlan haddaba haddii aad ka heshay fiidiyogan share garee asxaabtaada WhatsApp-ka iyo kuwa Facebook-ga kula wadaag adigoo channel-kana ka mid noqonaya dadka ku xidhan subscribe-na taabaraya channel-ka amba gambaleelka waxa uu taqaanana taabaraya waana mahadsantahay daawashadaada